waxaan ahay nin beeraley ah kana soo jeeda Corleone keliyana u xamaasha reerkiisa welibana xooggiisa maala oo si daacad ah u shaqaysta kuwaasi waa ereyadii Salvatore Riina kadib markii maxkamad la hor keenay sanadii 1993 Salvatore Riina inta la diiwaan geliyay waa ninka ugu dhigdaadiska badnaa taariikhda maafiyada weliba isagoo aan kaliya beegsanin maafiyada oo sida caadada ah maafiyada iyada uunbaa dhexdeeda isbeegsata balse isaga waxa uu dheeraa inuu dagaal toos ah la galay dowladda Talyaaniga Cosa Nostra oo micnaheedu yahay waxaan anaga leenahay ama waxaa la dhisay qarnigii 19aad waxaana loo aasaasay inay u shaqeeyaan qaab qarsoodi ah balse taa waxaa daaqada ka saaray Toto ama Salvatore Riina qisada ninkanna ma ahan mid la mid ah qiso waliba oo ku saabsan hogaamiye maafiyada ka tirsan ama xitaa soo maray marka la soo hadal qaado ninkan magaciisa waxa ku sumadaysan dilal badan isagana isugu mid ayay ahayd dilka kuwa isaga tartanka kula jiray yacni maafiyada inteeda kale ama kuwa isaga xitaa u shaqeeyay oo qofna ma dhihi karin waxaa suuragal ah inaan ka badbaado ninkan Salvatore Riina baahida uu u qabay inuu hogaamiye noqdo waxay sababtay iska warwareejinta cid waliba oo uu arkay inay carqalad ku ahayd hayaankiisa u gogol xaaridda keliya taliye aan xitaa dowlad ka hiibaysan Riina waxa uu 80-yadii ka sameeyay Sicilia ma ahan mid hal muuqaal lagu soo koobi karo balse waxaan isku dayi doonaa inaan idinkula wadaagno taxanahan dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee la diiwaan geliyay jasiiradda Sicilia oo ah halbowle isku xira koonfurta Yurub waqooyiga Afrika iyo weliba bariga Aasiya waa jasiirad istiraatiiji ah welibana qayb ka ah taariikhda Islaamka balse taasi muuqaalkan ma qusayso maadaama ay jasiiradda Sicilia dadkeedu ahaayeen kuwa danyar ah oo aan waxba haysan dhalinyarada qaarna xalka kaliya ee looga bixi karay baagamuudanimada waxay u arkeen inay ahayd in maafiyada ay ku biiraan balse xagee ka soo galay Salvatore Riina Cosa Nostra maadaama uu sheegtay inuu ahaa nin beeraley reer Corleone ah xageena ku taalaa Corleone sidee ayuuna ku noqday ninkii sababay inay si isku mid ah uga argagaxaan maafiyada iyo weliba dowladda waxaan ku faahfaahin doonaa arrimahaas oo dhan muuqaalka xiga ee la socod wanaagsan